هذا الصومالي جعشاي أما الصومالي ما كوجرتو علنك بلوغا دحدا كله شنت جيسكا أما بنتجرام كوحلو يقانو هكو حرانين سوماليلاند هكو حرانين سوماليلاند وهدي هاي صومالي جعشاي صومالي نمو ربطو ودنكاغو إنو دبكوغو هاغاغو waxa cajiiba inuu shakhsi ku xirto calanka buluuga ee shangeeska dhexda ku leh inuu ku xirto Somaliland waa sheeko runtii cajiiba waxaanan anagu aaminsanahay hadaan reer talo ku noolnahay shakhsiga sidaas sameynaya inuu yahay shakhsi nacab Soomaaliya ama Soomaalinimada nacab ama ka shaqeynaya dano dad aan Soomaalida jeclayn ama ka shaqeynaya dana dad gooniya oo wata siyaasad gooniya waxaan aaminsanahay dhalinyarada iyaga ahi in ay ahaayeen dad loo soo diray in ay baabi'iyaan ama ay ka hor yimaadaan xasiloonida waddanka Soomaaliya Somaliland waa walaalehen Somaliland calankan buluuga ee shangeeska dhexda ku leh waa lagu xasuuqay kumankum qof ayaa uga dhintay dhiigoodii ayaa lagu daadiyay waxaa lagu weeraray diyaarado taangiyaal bebe armored vehicles oo calankaas buluuga ah uu ku buufsan yahay the might of the Somali military aa lagu weeraray xooga Soomaaliya oo dhan ciidamada Soomaaliya oo dhan oo aan xabadi ka harin ayaa lagu weeraray cir bad iyo dhulintaba waxayna wateen kulligood calanka buluuga ee shangeeska dhexda ku leh maanta marka haddii ay yiraahdeen calankani waana dhibaya uma rabno mana doonayno qofka ku dhex xirta waa qof raba inay sii fogaadaan horaan u sheegnay inaan la qasbi karin Somaliland horaan u sheegnay inaanan xoog ku muquuni karin Somaliland horaan u sheegnay in aanan sidoo kale rabin inay naga go'aan shakhsiga marka maantay Somaliland ku dhex xiranaya calanka buluuga ee shangeeska dhexda ku leh oo calan anagu aanan samaysan oo calan gaalo inoo samaysay oo calan ay sameeyeen ama ay nagu sireen gaal iyo gaali jireen ay nagu sireen oo calan runtii lagu caabudo diimo kaleeto ama calaamad diimo kaleeta inaad Somaliland maanta ku dhex xirato oo aad iska dhigto qof calankan u doodaya micnaheedu wuxuu yahay waxaa tahay qof nacab Soomaalida ama Soomaalinimada ama Soomaaliya inay midowdaba waxaa xaqiiqa anaga haddaan reer talo ku noolnahay waxaan ognahay oo xaqiiq noo ah inay jiraan dad Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo runtii aan rabin Somaliland inay Soomaaliya la midowdo mana dhahayaan hadalkaas dadka u sheegi maayaan laakiin waxaan ognahay xaqiiqdu inay tahay in aysan rabin Somaliland in ay Soomaaliya la soo midowdo dadka aan saas leenahay waxay ka tirsan yihiin Soomaalida kale ma ka wado dadka Somaliland ayaga dad badan ayaa aaminsan inay iskoodu go'aan waa xaqiiqtaas laakiin intooda badani ma aaminsana inay Soomaaliya ka go'aan hase yeeshee dadka Soomaalida oo reer koonfureedka ah Soomaalida koonfureed dad badan oo ka mid ah ayaa maantay ku faraxsan raba u ololeeya in Somaliland ay ka go'do Soomaaliya waxayna u arkaan dantooda siyaasadeed inay ku jirto sidaas aan marka lagu celiyo dad koonfurta Soomaalida ka tirsan ama koox ka tirsan Soomaalida koonfureed ayaa jecel u ololeeya raba in Somaliland ay ka go'do Soomaaliya waxayna u arkaan in dantooda siyaasadeed ay ku jirto sidaas dadkaasi waxay had iyo jeer isku dayaan in ay riixaan inay ka xanaajiyaan inay caayaan in ay u diraan dhalinyaro iyo dad kaleeto in calanka buluuga lagu dhex xirto Somaliland oo haddana ay yiraahdaan calanka yuhuudana waa ogol yihiin ka Soomaaliya waa diidaya calan Soomaaliyeed ma jiro calanka buluuga ee xidigta dhexda ku lihi ma aha calan Soomaaliya ka dhaxaysa ama ay ku wada qanacsan yihiin calanku wuxuu calan Soomaaliya noqdaa marka Soomaaliya oo dhan ay ku qanacsan tahay haddii qayb ka mid ah oo waliba millions ah ay diidan yihiin ma aha calan Soomaaliya lagumana qasbi karo waxaana ceeb ah waxa xayawaannimo ah haddii aadan dan kale lahayn sida kooxdaas aan sheegnay oo ayagu raba Somaliland inay go'aan oo u isticmaalaya calanka inay ku xuuxiyaan ama ku cabsiyaan ama kaga xanaajiyaan waxaa ceeb ah inaad calankaas ku xirato Somaliland amaba aad u aqoonsato inuu yahay calan Soomaaliyeed
arrintaasi waa arrin qalada, waa arrin ceeba, waa arrin ka hooseysa human intelligence thinking, fikirka qofka bini aadamka ee caqliga leh. sababta aan saas u leeyahay marka maxay tahay? waxaan rabnaa waddan inaan dhisano, waxaan nahay Soomaali, waa jecelnaha waddankeena. qof ma qasbi kartid. maantay waxay taagan tahay heer maamul goboleedyadii kuwii intii israacsaneed ee Soomaalida koonfureed ahayd ay yiraahdaan dowladda lama shaqaynayn. awooddaasna waa leeyihiin, wayna tuseen inay awooddaas leeyihiin. waxaan isku daynaa marka inaan soo maslaxno, barino, la hadalno, tanaasulaad loo sameeyo. waayo waxaan rabnaa Soomaali wax la yiraahdo. Somaliland dhowr milyan oo Soomaaliya ku nool, jecel Soomaalinimada, wadaniyiin ah, ka wadanisan Soomaalida inteeda badan ka wadanisan, macnaheedu marka la ka wadanisan kana Soomaalisan kana wadanisan. dadkaas iyaga marka waxay naga mudan yihiin, waxaan ku qasbannahay, waxa waajib inagu ah inaan soo maslaxno, in aan u dhimrino, in wixii dhibaya aynu ka dayno. waxaa Soomaalinimada ka soo horjeeda, waxaa Soomaali nacayb ah in aad ku dhexirato calanka buluuga ee shangeeska dhexda ku leh ee lagu xasuuqay aabbayaashood, awoowayaashood, adeeryaalkood, eedooyinkood iyo walaalahood, lagu daadiyey dhiiggoodii, lagu weeraray awooddii buuxday ee ciidanka dalka Soomaaliya. waa brainless, waa caqli xumo, waa doqonnimo, waa waxashnimo in aad ula tagto dadka noocaasa calankii adoo wata. taas micnaheedu wuxuu noqon karaa inaad nacabtaa Soomaaliya. taas micnaheedu wuxuu noqon karaa in lagu soo adeegsaday. taas micnaheedu wuxuu noqon karaa in aadan rabin Soomaaliya in Somaliland inay Soomaaliya ku soo noqoto ama ay la midoobo. waayo hadda dadka qaarkood marka aan iraahdo Soomaaliya inay wada midoobaan waxay i weydiiyaan goormay kala go'een. of course ma qasbi kartid Somaliland. haddaad aaminsan tahay Soomaaliya inaysan kala go'inin, waxba naguma dirsadaan, waxna la wadaagaan, halkaasay taagan yihiin. yes of course international recognition ma aysan helin weli oo caalamka looma aqoonsan, laakiin maantay aadna ma qasbi kartid, iyaguna kuma rabaan, unless ilaa ay timaado in shuruudda ay rabaan loo fuliyo ama lagala hadlo. shuruudda ay rabaanna waxaa kow ka ah oo ay noo sheegaan iyagu in calanka buluuga ee shangeeska dhexda ku leh la bedelo. walaalkayga Soomaaliga, walaashayda Soomaaliga ee calanka shaydaanka ku dhagan, ee ayadoo og ama isagoo og inaanan anagu samayn, og in uu yahay calan gaal uu sameeyey. taariikhdii bannaanka aan soo dhignay 50 milyan oo Soomaaliya ilaa hadda qof nagaladooda aan lahaynin. waxaa kaliyoo nagaladooda ay tahay dhinaca cibaadada marka laga hadlayo, iyadana culummadii ay nagu raaceen oo ay ayideen positionka anagu aan qaadanay. inaad maanta calankaas sii aaminto ama aad sii haysato waxay kugu tahay Soomaalinimo xumo iyo jaahilnimo. waxay kugu tahay inaadan ahayn shakhsi awood u leh in uu asagu ka fakaro ama u fakaro naftiisa. waxay tusaale u tahay inaadan gaari karin go'aan sax ah ama caqligaaga aadan isticmaali karin. waxay tusaale u tahay inaad ku dhagan tahay meel cidla. inaa wajadnaa aabaa'ana ama aabbayaasheenan ka helnay, ama calankan waa kusoo dhaqmi jirnay, ama ayadoo la haystaan aragnay, ama aabbayaasheenan ka soo gaarnay, waalidkeenan ka soo gaarnay, xujo ma noqoto, caqlina maaha, cilmina maaha. waa lagugu siray, taariikhda waa lagu qoray. therefore ma aha wax aad u baahan tahay in aad inaha la ekaatee xujo ahaan u soo oogto. you're absolutely wrong. waxaa laga rabaa marka calanka buluuga ee shangeeska dhexda ku leh Somaliland inaad ku dhexirato waa Soomaali nacayb. waxaa taa shakhsi nacab Soomaalida, shakhsi nacab horumarka Soomaalida, shakhsi nacab Soomaaliya inay midowdo. haddaadan saas ahayn, haddaad jeceshahay Soomaaliya inay midowdo, calankan buluuga dhinac iska dhig. u ololee sida aan u ololayno, nagu taageer sida aan aaminsanahay in calanka buluuga iyo astaanta qaranka ee ku jirto calaamadda kirishtaankuba in la bedelo, la tuuro. waana sida saxda, waana sida kaliya ee Soomaaliya aan ku dhisi karno maanta. haddii laakiin walaalkayow ama walaasheeyey
aad qaadato calanka buluuga ee aad somalilan la dhex istaagto waxaad sii kala fogeynaysaa soomaalidii isjecleed waxaad sii kala fogeynaysaa ama aad adkaynaysaa fursaddii soomaaliya ay ku midoobi lahayd waxaad tahay qof soomaalida neceb aan isweydiino qofka soomaaliga ee iminka ku dhex xirta calanka buluuga ee shangeeska somalilan ujeeddada uu ka leeyahay maxay tahay muxuu isleeyahay ku guulayso su-aashaas isweydii what is his interest dantiisu maxay tahay inuu somalilan dhibaato u geysto inuu emotionkooda kiciyo inuu xusuusiyo calankii aabahood iyo hooyadood iyo walaalahood lagu xasuuqay is that what it is ma sidaasuu rabaa inuu ku guulaysto muxuu rabaa waayo waxaa inoo cad somalilan in calankan annaguna aan ognahay ayaguna ay noo sheegeen in lagu xasuuqay somalilan calankan ayadoo la wato dadkoodii calankan marka gaalku uu noo sameeyey calankan taariikhdiisii bannaanka aan soo dhignay oo 50 milyan oo soomaalida ahay qof nagala dooda maanta aan la heli karin dooda kaliyahoo nagala doodana ay tahay tii ahayd dhinaca cibaadada ayadana aan ku guulaysanay oo culummadii ay nagu taageertay intii kalena qofna uusan ka hadlin maalan taariikhdiisa inaan anagu samayn nala kalama doodi karo waa xaqiiq waxaana la kala doodi karin inuu yahay astaan ay isticmaalaan qoomiyado kaleeto oo lagu caabudo diimo kaleeto nala kalama doodi karo waxaan kaloo nala kala doodi karin inuu yahay kala qaybiye inuusan ahayn calan mideeya soomaaliya sida noocaad maantay ood u jeedaan dhammaantiin haddii marka ay saas tahay haddaad soomaali tahay haddaad soomaalinimada jeceshahay inaa wajadnaa aabaa'anaa aabbayaasheenan ka helnay ayadoo lagu dhaqmayaan aragnay ayadoo la haystaan aragnay waa ku soo gaarnay isagaa la haysa jiray saasaana loo sheegay xujo maaha waddanna kuma dhisi kartid because sida laguu sheegay waa qalad waxyaaba badanaa naloo sheegay waxaa naloo sheegay maalan waddankan in ay badbaadiyeen niman ah 13 oo la yidhahda Israel waxaana la ka qariyey waddankan inay badbaadiyeen 10 nin oo loo dila daraadood oo culimo ahaa oo hor istaagay waddankan in lagu faafiyo waxaa la yidhahdo shuuciyadda taariikhdooda yaa kuu qoray xaggeen maanta ku ogtay magacyadoodii ma taqaanaa maya you don't know their names magacyadoodii ma taqaan 10kaas wadaad allah u naxariistee waxay mudan yihiin taariikhda soomaaliya baal dahaba maanta inay ka galaan waxay mudan yihiin in lagu barto iskuullada waayo ayagaa waddanka badbaadiyey exactly dowladdii siyaad barre way toogatay laakiin markii la toogtay dhimashadoodii waxay keentay in shuuciyaddii la istaajiyo ilaahayna uu nasrina siiyo sidaa daraaddeed marka waxa lagu qoray ma aha waxa saxda taariikhda soomaaliya waxaa qoray ninkii ku guulaystay ama dagaalkii ku guulaystay oo gumaystaha ayaa kuu qoray waxaan leeyahay marka qofka soomaaliga ee calanka buluuga ee xidigta dhexda ku leh ama shangeeska dhexda ku leh xidig maaha xidig waxaa la yidhaha midda samada ku taala iyaduna shangees ma laha qofka ku xirta somalilan waa qof ugu talagalay soomaaliya in uu carqaladeeyo dhibaato geliyo somalilanna waxay xaq u leedahay qofkaas in la ciqaabo absolutely waayo haddii aad tahay soomaali nacayb ama qof soomaalida nacab in layska kaa qabto waa wax waajiba malaayiin soomaaliya ayaa aaminsan fikirka ah calankan in uu yahay kala qaybi malaayiin soomaaliya ayaa aaminsan calankani inuu yahay calankii lagu dilay awooyaalkood adeeryaalkood aabbayaashood walaalahood iyo ehelkood oo xaqiiqa oon been ahayn somalilan waxaa lagu weeraray ciriya dhul iyo badba waa laga soo weeray dadkoodii waa la xasuuqa sidee marka maanta adigoo dhahaya soomaali baan ahay calanka buluuga in aad ugu xiran kartaa somalilan dhexdeed waxaan leeyahay marka ma dadka reer somalilan ee jecel soomaaliya inay midoodo ee ku tusa soomaaliya inay midoodo calanka inay xirtaan waa qaldantii ha isticmaalin calanka soomaaliya inay midoodo kulligeena rabna somalilanna qaar ka midihii way rabaan in fact intooda badani waa rabaan midnimada soomaaliyana marna kama tanaasulayn
laakiin qaabka loo maro yuusan noqonin qaab burburiya waddadii iyada ahayd ee aan rabnay in Soomaaliya aan ku celino inay hal ahaato. kuwa bannaanka ka jooga ee aan reer Somaliland ahayn ee inta tagaan calanka buluuga ku dhexirta Somaliland waxay mudan yihiin in la ciqaabo. reer Somaliland inay ciqaabaan waa ku saxsan yihiin. waayo su'aasha aan u baahnahay inaan isweydiino waxay tahay calankan inaad ku dhexirato Somaliland maxaad ka wadaa? why maxaa ugu dhexaranaysaa? ilaan kama wadi kartid Soomaalinimo, kama wadi kartid Soomaali jacayl. waxa kaliya oo aad keeni kartaa ama aad ka wadi kartaa inaad Soomaali nacab tahay. qofka Soomaali nacabna waa inaan iska qabanno. absolutely. xaqiiqdu waa sidaas. calanka buluuga ee shingeeska dhexda ku leh dadka Soomaaliyeed dhammaan meel walbay joogaan waxaa ku waajiba, waxaa muqadas ku ah, waxaa qasab ah, waxaa looga baahan yahay inay meel iska dhigaan ee ay samaystaan calan iyagu ay leeyihiin oo ka turjumaya taariikhdooda, oo ka turjumaya diintooda, oo ka turjumaya dalkooda iyo dhaqankooda. calanka aan u baahanahay waa calan noocaasa. calanka noocaasa haddii aan samaysano waqooyi galbeed dhib kuma haynayo. in fact waxaan aaminsanahay inay kasoo qaybgalayaan marka la samaynayo. balse calankan aan maanta haysano ee calanka shaydaan, ee calanka gaalku noo sameeyey, ee calanka lagu xasuuqay Soomaali badan dhiigoodii. Somaliland kaliya ma aha, dad badan oo Soomaalida koonfureeda ayaa qaba arrintaas oo aaminsan calankani in lagu xasuuqa, aaminsan yaan dhihine ay xaqiiq tahay in lagu laayay dadkoodii oo dhiigoodii u qabo lagu daadiyey. kamana hadlayo dagaalkii sokeeye. qabiil markuu qabiil dilo waa gooni, laakiin dowladda markay qabiil disho sharci ayaa adduunka ka yaala. reer waqooyi waxay u baahan yihiin magdhow, laga magdhabo wixii lagu sameeyey ilan dowladda weerartay iyo dadkii kaloo dowladdu ay weerartay sidoo kale. waxay u baahan yihiin in lagala fadhiisto oo la yiraahdo okay maxaan idinku qancinaa, wixii ay dalbadaan in la siiyo. laakiin in la caayo oo koox ayagu u arka dan siyaasadda dantoodu inay ku jirto Somaliland inay go'do aanan sheegi karin, kuruma dhihi karaan. waayo waxay ogyihiin dadka Soomaalida oo kaleeto inay la dagaalamayaan, laakiin waxay jecel yihiin oo uurkooda ku jira in ay rabaan Somaliland inay go'do. dadka aan saas leeyahay ma aha reer Somaliland, waa dad Soomaalida koonfureed ka tirsan. waxay habbi ku yihiin, waxay ku qanacsan yihiin Somaliland inay go'do. waxayna u arkaan arrintaasi dantooda siyaasadeed inay ku jirto sidaas. waxaad ku fahmi kartaa dadka noocaasi marka la caynayo Somaliland, marka calanka lagu dhex xiranayo, marka wax laga sheegayo siyaasiyiintooda, marka la yasayo oo la leeyahay wax ma samayn karaan. waxaa ka hadla waa hal koox. annagu waan fahamsanahay arrintaa, waanan ognahay. reer waqooyina waa ogyihiin, waa dad aad u caqli badan. Soomaalida inteeda badanna waa fahamsan yihiin. waxaan leeyahay marka walaalayaal, waxaan ku soo gunaanadayaa calanka buluuga ee shangeeska dhexda ku leh haddii Somaliland ay tiri dhexdeena laguma xiran karo, laguma xiran karo. waa in la xushmeeyo nidaamka u yaala Somaliland. xaqay u leeyihiin go'aanka inay gaaraan. waa dad Soomaaliyeed, laakiin waxa ay samaystaan ama nidaamka ay samaystaan xaq bay u leeyihiin, waana in lagu tixgeliyo. waa qofka jecel Soomaaliya iyo Soomaalinimada. qofkii Soomaali nacab ee ka hor yimaada nidaamka u yaala xabsi buu galaya ama waa la dilaya. reer waqooyina xaq bay u leeyihiin saa inay sameeyaan. taas waxaa ku caddaynaysaa gobol kasta oo ka mid a gobollada kaleeto sharciga ayaa u yaala. sharcigaas qofkii jabiyana dee ciqaab buu leeyahay. marka nidaamka u yaala waqooyi Somaliland waa in la ixtiraamo, waa in la xushmeeyo, waana in la tixgeliyo. sidaas ayaa waxaan ku gaaraynaa inaan helno Soomaaliya. sidaas ayaa waxaan ku gaaraynaa inaan isu soo dhawaano. sidaas ayaa waxaan ku gaaraynaa in ay dhalato Soomaali jacayl. calankana ma noqon doono calanka mustaqbalka. I can assure you tonight waxaan caawa idin ballan qaadayaa calankani
ama anigu waqtigan noolahay ha dhaco oo hala bedelo ama markaan dhinta hala bedelo laakiin waxaan idin ballan qaadayaa calankani maalmihiisa u haray waa tirsan yihiin waana la bedelaya ha ku daalin marka haddaad tahay soomaalina jeceshahay qof caqli lana aad tahay waxaad ogtahay maantay calankani inuu yahay calan gaalo ay leeyihiin nalala leeyahay diimo astaamo u ah calaamadii kirishtaanku ay ku jirto calaamadii kirishtaanka ee loo yaqaano Greek Christian Cross ay astaanta qaran ku jirto shangeeska dhexda uga jira calankana lagu caabudo 4 diimood annagana aanan samaynin qofka Soomaaliga ee dusha loo saariyay wuxuu ahaa qof ka qayb qaatay khiyaamada wadanka iyo dadkii loo ogaaba waxaan kaloo xaqiijinay oo maanta u jeedaan inuu Soomaaliya si kala qaybinayo therefore waxa qof walba caqli leh dareemi kara calankan maalmaha u haray inay tirsan yihiin ha ku daalin marka walaalaha Soomaaliland isku day inaad ammaanto isku day inaad ixtiraamto isku day in aad sharcigooda u dayso isku day in aad suma salaxdo oo aad soo dhawayso naar inaad caydo nimanka siyaasiyiinta iyo dadka kaleeto ee sheeganaya salaadiinta ee Somaliland markasta wax ka sheegay danta ay leeyihiin waxay tahay Somaliland inay go'do waayo waxay u arkaan Somaliland marka ay soo noqoto Soomaaliya ay midowdo in iyagu meeshaas wax ku weynayaan danta noocaasa ama siyaasadda noocaasa ay iska dhaadhicin arrintaasina waxay keenaysaa qofkaas inuu yahay qof Soomaali nacab qof wadaniyadiisu ay daciif tahay qof qabiilku uu ugu horeeyo qarannimada waa mahadsantihiin sidaas ayaan isku ognahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh